saaxiibayaal meel walbo joogtaan waan idin salaamay kuna soo dhawaada barnaamijkeeni bandhiga oo galab walba aad ka daalacataan barteeda Facebook waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed galabta la wadaago xogihii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaaliya iyo wararkii xantii dhagdhagaha u badnaa kuwaasoo dhawooba Soomaaliya maalmo saacado iyo bilooyin kadib laakiin halkan waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo barnaamij loogu magac dar bandhiga galab walbaan go'aansaday in halkan ka soo bandhigo marka waxaan rabaa inaan galabta dul istaago shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo maanta baaqday sababta u baaqday iyo waxaan rabaa sidoo kale inaan ka dhawaajiyo mursal oo ismiidaamin siyaasadeed wali ciyaaraya oo reer galbeedkuna ala leeyahay berito waxay hadii uu ku dhawaaqo ismiidaamintaas waxa loogu magac dari doonaa spoiler isagana waxaan rabaa sababtii ku kaliftay muxuu qaatay xil noocee oo ku bedeshay mursal inuu ismiidaamintan qaato taas su'aal u baahan waayahay hadalkii senator Umar Cabdirashiidna ee ku saabsanaa waxa loogu yeeray amni iyo difaac ee dawladaha Eritrea Ethiopia iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo waxaan rabaa inaan xoojiyo baaq Xasan Daahir Awees mas'uul hore oo ka tirsan maxaakiimta islaamiga ah ee hadda xabsi guriga magaalada Muqdishona hadal baaq uu diray ra'iisul wasaaraha fadhiidka ah Roble waxaan rabaa inaan halkan ku xoojiyo oo wax ku darsado laakiin marka hore intaan guud galin barnaamijkaas dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaad ka warhaysaan in ififaalihii rajadii aad ka qabteen shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda waqtigeedu ilaaday uga socday teenada afisioni maanta in aanu dhicin shirkaas taasoo niyad jab ku ah shacab fara badan Soomaaliyeed waxaan rabaa sababta uu u baaqday kulankaas iyo waxa ugu weyn oo la isku haysto oo shacabka Soomaaliyeed ka daboolan ayaan rabaa in halkan aan ku bidhaamiyo galabta haddaba Axmed Madoobe iyo Siciid Dani oo dhinaca kuwaasoo diidan dawladda waqtigeedu ilaa ninka hor boodaya farmaajo waxa loogu yeeray sadbursi siyaasadeed iyagoo diidan ama ka duulay ayaa waxa la leeyahay maanta waa baaqday iyagaana baajiyay sababtana waa in la cadeeyo shirka cidda amnigiisa sugaysa in farmaajo ilaalo uusan la iman halkaas taasoo waliba la leeyahay beesha caalamku way ka diideen oo way ka dhaga fureysteen ama mataqaana dalabka ka imaaday Deni iyo Axmed Madoobe laakiin waxa loo fududeyn doonaa la leeyahay dalabyada kale oo ay rabaan in ay shirka ama miiska dul keenaan waayahay maxaa ugu weyn shacabku way isweydiiyeen waxa la leeyahay war Deni iyo Axmed Madoobe iyo farmaajo maxaa ka dhaxeeya waxaan rabaa taas inaan dul istaaga maanta markaan qodobkan aan dul istaagnana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed galabta u sheego hadal taariikhi ah oo ay meel ku qaran doonaan waxa kamid ah mursal ismiidaamin siyaasadeed inuu ciyaaro wixii ku kalifay cidii u soo bandhigtay sababta loogu keenay iyo muxuu ku bedeshay waaye haddaba waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego kelmad siyaasadeed weyn haddaba maxay tahay waxa weeye Deni iyo Axmed Madoobe iyo farmaajo isma haystaan waxaas haysta saamileyda siyaasadda Cabdi Xaashi wataqaana iyo labadan nin hogaamiyaasha hadda mandate-ka haysta Axmed Madoobe iyo Deni labadooda waxay rabaan kuma taqaana uma hor tagaan farmaajo waxay sharciyad u haystaan iyagu inay la doodi karaan farmaajo maadaama mandate ay haystaan oo beesha caalamkana ay mataqaana wax u sheegi karaan hataa iyagoo waliba ku aragti ah ku fikir ah Xasan Sheekh Shariif Xasan Khayr mataqaana Cabdi Xaashi intaas waana sababta ay waliba ugu oleynayaan in Cabdi Xaashi shirka iyo saamilada siyaasadda ay ka qayb galaan shirka shuruudaha ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin dadku waxay u maleeyaan Axmed Deni ninka la Deni iyo Axmed Madoobe in mataqaana ay farmaajo isdiideen no Deni iyo Axmed Madoobe hotel la yiraahdo Jazeera loo fadhiyaa nimankan siyaasiyiinta Umar Cabdirashiid iyo kamid yihiin aan u jooga halkaas waxay ku hadlaan afkaarta maadaama iyagu mandate ay haystaan taasaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego iyaga waaya haddaba iyaga marka waxay rabaan ajandaha shirka intaana la gaarin ba horta in la isku raaco shirku inuu ka soo qayb gali karaan Xasan Sheekh Shariif maadaama madax dalkan u soo shaqaysay taariikh fara badan ku leh in loo ogolaado shirka inay imaadaan sidoo kale Cabdi Xaashi aqalka sare oday siyaasi ah oo khibrad fara badan leh oo mataqaana odagii Soomaaliya ah shirka waa inuu ka soo qayb galo marka waxaan rabaa qodobada kale ee la isku haysto horta taas waa horodhaca waxa la isku diidan yahay laakiin hadhow hadii xataa la soo yimaado waxaan rabaa shirkan arinta gado
nag arinta kuraasta waqooyiga farmaajo kuraas waqooyi gada kama tanaasulay taasoo cadeen u ah iyo dadiilo waliba asaga u yeelaysa oo ay mar kale uu soo laaban karo kursiga madaxtinimada waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed mataqaana hadda daawanaya farmaajo amaanaya nabi waaye ilaaha soo diray rasuul waayahay haduu rasuul yahay haduu dadka Soomaaliyeed jecel yihiin kuraasta dhaxdaas kursiga dhaxdaas soo dhigo oo kuraasta waqooyi nimanka insaan ee Samaroon iyo waqooyi oo dhanba ha iska daay gada in adeertiis ee degantaana ha iska daay haduu rasuul yahay nin fiicayana hadda reema hatta mataqaan inuu guuleysanayo taasaan rabaa inaan ku xoojiyo marka waxaan rabaa odayga horta farmaajo ah intaas marka laga soo tagana waaba nin aan qodobada inay wax ka soo baxaan rabinba maxay tahay waxaan helay xog ku saabsan in qadar farmaajo ay ku tiri haddii beesha caalamku ilaan mandateeka hadda dowladda waa dhamaaday oo wax hadda wasaaradda oo lacag qaata ma jiraan wasaaradda maaliyadda ugu weynba lacag ma hesho wasaaradda mataqaanaa difaaca iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo midda amniga ayaa helaan tasiilaad beesha caalamka ugu imaanaya oo tiro kooban kuwaasoo weliba beesha caalamka ay leedahay waxaan rabnaa in uusan istaagin ama uun kala dhantaalmin dagaalka loogula jiro kooxda al-shabaab laakiin wasaaraddii maaliyadda wasaaradii arrimaha dibadda wasaaradii arrimaha gudaha warkeeda yaa maqlay dhaqaaliha laga jartay labada bilood ugu dambeysay maadaama mandateeka madaxweynaha iyo dowladdii dhan uu dhamaaday waaya marka dowlad nin la yiraahdo Roble wuu iska joogaa laakiin farmaajo wuxuu helaan rabaa inaan xogtan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaan rabaa oo aad meel walbana aad gaarsiisaan oo muuqaalkan aad la wadaagtaan cid walba ay qusayso qadar niman la yiraahdo iyo Fahad Yaasiin farmaajo oo dhinaca iyo qadar oo dhinaca ay ku heshiiyeen in dhaqaalo wax liira lacag aan ugu ku caawino dowladda farmaajo haddii ay la yimaado mandate sax ah waaya mandate-ka saxda ah goormaa la heli karaa saa doontiin ku helaa lir laakiin annaga haddii idinka goostaan dhaqaalaha beesha caalamka oo bixisa mushaaraadka ciidanka bulshada mataqaanaa shaqaalaha rayidka cid walba annagaa bixinayn laakiin mandate la imaada mandate-kaas laga shaqeynaya marka waxaa loo tagay nin la yiraahdo Mursal waxaa la yiri ka war arintan ismiidaamintan haddii ay qaadatid wuxuu dhahay Mursal aan rabaa shacabkina u sheego Mursal nin qaldan ma aha ismiidaaminta wuxuu isugu soo xiray ninka shabaabka markuu ismiidaaminayo muxuu isugu soo xiraa jannada gali sababta mi ismiidaamin maadaama qashi qof ismiidaaminayo waxa waaye waxbuu haystaa jannada gali xural ceena helay waxbuu ku fikiraa kan muxuu ku fikiraa Mursal waxa uu ku fikirayaa ama loo sheegay nin weyn waaye wuxuu bulshada hor imaanana waa yaqaanaa Mursal marka aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego wuxuu qaatay Mursal oo si caadi ah oo live u sheegay Mursal wuxuu qaatay lacag 2 milyan ah oo wallahi ah Mursal 2 milyan kuma filna ismiidaamintaas ceebta oo xataa laga yaabo in beesha caalamka spoiler ee uu magac daraan uu ogyahay isaga Mursal sidoo kale waxa loo balan qaaday in la siiyo ninka ila booska cadcad lafta gareen oo looga dhigo nin la yiraahdo jaamac oo qunsulka ahaa Turkiga sidoo kale waa wasiirka cadaaladda ah waa wiilkiisa camal wiilkiisu dhalamaha laakiin waa wiil uu siyaasadda ku barbaariyo dhalaan siyaasadeed u ah isaga Mursal labadaas mataqaanaa 2 milyan iyo in jaamac looga dhigo lafta gareen wax u cuntanta ay noqotay waa u cuntanta waana wax ismiidaamin ku sameyn karo sababta maxay tahay jaamac halkaas uga dhigto 2 milyan kaliya uusan ahayn Mursal waxay isdiidan yihiin nin leeyahay lafta gareen dhanka siyaasadda isu diidan yihiin kaasoo xulista baarlamaanka iyo inuu si ahaado gudoomiye baarlamaan mar la labaad hamigiisa si lamida farmaajo carqalad ku ah oo si daran isu diidan mataqaana dhinacyada siyaasadda lafta gareen siyaasuu ku doortay waana loo ballan qaaday jaamac in looga dhigo madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne maamul goboleed wax micno badan sida hadda farmaajo iyo lama aha maba ahaba waa sax waayahay isla tan intaana ka bixina qoorqoor ayaa isna lagu wadaa inuu baneeyo kursiga oo laga dhigo wasiirka cadaaladda hadda jooga ninka la yiraahdo al-Adaala in lagu bedelo dad badan ay isweydiiyeen maxaa loo bedelayaa maxaa isaga sababta maxay tahay waa fahnay lafta gareen ninba ismiidaamin ku qaatay laakiin ninka waxa loo bedelayaa waxaad moodaa inuu ka dheereeyay madaxdii maamul goboleedyada inuu sheegay inuu san cadeynin welito percentage-ka xildhibaannimo ee xulista dowladda dhexe ku lahaan doonta mataqaanaa galmudug dad badan ma fahamsaneen percentage-ka xildhibaanadan in la yiraahdo lafta gare qoorqoor wuxuu dhahay
aniga waan samayn karaa inta karaankeyga laakiin aniga ma taaban karo mahad salaad ma taaban karo cabdi qeydid ma taaban karo odawaa ma taaban karo waa kursi beesha habar gidir leedahay mana rabo in laga maamulo fila Soomaaliya meel banaanka ka ah raganimo qorqor waa raganimo waana sababta hadda la rabo in isaga lagu bedelo alcadaala oo wiil yar oo hadda soo baxayo dhaga fudud oo war maqlaayo oo wax kasta yeelayo waay halkaas waa ninka la yiraahdo qorqor waaya mursal oo soo laabta markii mursal 2 milyan plus jaamac oo lagu bedelay lafta garee wax uu cunto noqotay saas marka ay soo maraya ayuu wuxuu la yimid baarlamaankii si toosan u shacabku ugu sheegay inuu sameyn doono wax loogu magac daray muddo kororsi qasab ah waaya waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago meel walba ay joogaan iyo si walba ay daawanayaan mursal wuxuu baarlamaanka gudoonkiisa waqtiga dhamaaday isagana waqtigiisa dabc waa dhamaaday si cad ugu sheegay wax la qarin hadda qeyro kale waa la qarin jiray oo waa la qarinay markii xukunka laga qaaday laakiin si toos ah lagu sheegay marka waxaan rabaa 15 xildhibaan oo ka hor timid ismiidaamintaas ma taqaanaa wax ay yeeli doonaan berito arbaca 15 kaas sidii ay xaqiijiyeen qaar kamid ah waxay wacd igu mareen in halkaas ay tagi doonaan iyagoo waliba isugu talagalay nabad iyo colaad waxay halkaas ka dhaxlaan wixii halkaas ay kala kulmaan inay diyaar u yihiin inay ma taqaanaa ay qaabilaan marka halkaas marayso mursal wuxuu ku guudiyay in ciidamo dheeraad ah halkaas keesan doono ragga halkaas laga celinayna waxa ugu badan raggii beesha hawiye oo ciidanka ugu far badan magaalada Muqdisho ku laa oo xildhibaano ah oo aan ka qayb qaadan wax dagaal ah halkaas waxaan rajeynayaa inay ka dhalato ma taqaanaa kulay nabad buuxda colaadna aan u rajeyn halkaas taasoo ma taqaanaa ififaalo meel golihii shacabka hadii wax rasaas ka dhacdo waa ififaalo aan wanaagsaneyn oo kana turjumayn nabad iyo dal sida Soomaaliya oo kale oo soo kacaya oo laga rabo inuu nabad buuxda noqdo aan rajeynayno ma waxna in halkaas ma taqaanaa dhibaatooyin halkaas ay ka dhacaan waayahay mursal hadii uu bari ismiidaaminta sameeyo maxaa dhici doona mursal uu sameeynaya sida ay sheegeen waa nin heshiis contract la kala galay waa sameeynaa laakiin beesha caalamka spoiler wax la yiraahdo ayaa lagu xukumi doonaa haddaba si fiican ii maqla spoiler kalmadaas hadii loo adeegsado ma safri karo ma dhoofi karo isagaana qaadan doona mas'uuliyad walba oo ka imaada ismiidaamintaas siyaasadeed oo mursal go'aansaday isagoo maraya danihiisa shakhsiga ah isagoo maraya waayahay maxay ka dhigantaa marka arintan waxay ka dhigantaa in farmaajo uusan rabin heshiis walba oo teenada afisoni dhul samareeb iyo midkii 17 September nuuc doman ha noqdo nin u socda hadaf leh hadafkiisa wax kasto carqalad ku ah waa laga yaabaa inuu xal iyo jilo riwaayad laakiin nin Soomaaliyada intii daawanaysa waxaan u sheegaa nin muddo kororsi heshiis kula galay in lafta gareen iyo 2 milyan mursal uu ku siiyo lafta gareen uu ku cuno ma ninkaasa teenada afisoni rajal looga qabaa inuu heshiis ku gaaro waa kaasa waa nin kale leeyahay saxiix bal fiiri xasan sheekh maxamuud oo intan asaga soo qabtay oo dalka ka soo shaqeeyay wuxuu madaxdii maamul goboleed isagoo la kala dhicinayo weligiin maartay shacabo maya wuu isku watay ma kula tahay Cabduuli Gaas iyo Axmed Madoobe iyo Shariif Sakiin iyo nagi ma taqaanaa halkaas joogay inay isjeclaayeen xasan sheekh isma jecleen xasan sheekh laakiin waaya oday wuxuu tusaale u ahaa in uu yahay oday Soomaaliya ma taqaanaa dhaxal uga taga xasan sheekh oo leeyahay war maxaa idin sameeyay wixii ugu weyn oo sameeyay ma taqaanaan inuu qoray warqad inuu yahay murashax kursigiina ma taqaan Soomaaliya hadda uusan mandate waxba mandate haysan oo murashax yahay ninkii qoro ka waran Allah Abdul Qadir Boos ma qoreen oo farmaajaan dhiga aqli yar ma qoro ma ninkaas leeyahay warqad qora wixii xasan sheekh oo wanaag ah uu soo sameeyay ayay hadda saamilada siyaasadii iyo mucaaradka leeyahay ninkaan sameeyay ninka uma dhalan saas xasan sheekh waa nin bulsho rayid ah ka soo shaqeeyay waay macallin soo noqdo waay arday madax adag soo arka waay arday caasi waalidiina soo arka waay soo arkay arday quraankana xifdi yaqaano ingiriiskana yaqaana iyo cilmi kale ama luqado kale yaqaana wax kasta macnaha arday hooyadiis aan la soo seexan 10 cish xataa xasan sheekh uu la sheekaysan jiray nin jaaliyad kursigeeda dhigi waayay ayaad ka rabtaa ninka noocaas ah u soo sheegay inuu wuxuu sameeyo taas waxay ayaan dara ku tahay saamilada siyaasadda waaya waxaan rabaa inaan laba erkay raado arinta senator Umar Cabdirashiid ahna murashax hadda sidaan rajeynayo uu ka dhawaajiyay farmaajo sidaan ii sheegay nin ma taqaanaa ku dayanayo waay nin ku dayanayo afwarki
iyo mataqaana abi oo uga dayanaya what's election why what nin saas taagan waay what's election ninku dhooyo ayaa rabtaa afisyoona isugu imaanayna doorasho dad bana la qabana waraa mid qof iyo cod la qabanin fiiri qof iyo cod waxa ku qaraabta dictatorka wuxuu dhahan waa ku gaarsiina dalka abi hadda wuxuu taagan doorasho sameynayna muxuu tabi alaf kula dagaal doorasho qabo waay marka waxaan rabaa kan hadda awood badan ma laha laakiin hadalka senatorka ayaan rabaa wuxuu ka soo qoray twitterkiisa intii aragtay waxa loogu magac daray amni difaac oo madaxweynaha hadda wuxuu u socdaba oo xishoonaya oo bulshada ku ogaato waa maahane ads abi mashquul kul marbi afwarki si loo xoojiyo wax lagu yeer saddexda wadan oo dictator saaxiib lagu dhigo marka Umar Cabdirashiid oo nin xog fara badan haayo inuu hadalkaasi Twitter ku soo qoro dad badan xubbi dhaamiyana raganimadeeda waa laha waan uga mahad celinayna tooshka uu sii ifiya anna maalin walba tooshka waa wadana nin afar batirlo ku ifiya marka waxaan rabaa inaan barnaamijkay ku soo gabagabeeyo Xasan Daahir Awees mujaahid weyn oo Soomaaliya dalkan iyo diintan wax badan u soo taray ayaa hadal diplomatic ah hadii nin weyn wax fahmay uu la hadlay ra'iisul wasaaraha fadhiidka ah Rooble oo uu ku leeyahay war miyaada faham weysay kaalintii hawiye booska aad ku fadhiisa qiimihiisa micnaha ra'iisul wasaarenimo iyo waxa tahay waa dukataa waa maqlooyay waana sontaa asalow hadaa maqlaysi taas waajib alla ku leeyahay waaye waa ka wada simanna laakiin waxaan aniga ka sinaan lahayn aniga Rooble haddaan ra'iisul wasaaraha hawiye u ahaan lahaa ila qabiilaha hawiye u ahay hawiye fiiri hawiya u ahay marka ku leeyahay Prime Minister of Somalia way laakiin beela lagu sii hawiya u ahay tabashadooda inaan dhageysto abashadooda inaan dhageysto mataqaana baahiyahooda gaarka inaan ku ogaado saas waay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya marka laga tago ra'iisul wasaaraha reer baa ku timid waa reerka inaad dhaqan ku leedahay oo mataqaana xushmad ku leedahay oo wax isku noqon kartid Xasan Daahir Awees nin habar gidir oo xayr ah ninkaas wax u sheegan laha mataqaana yaa ninkii mudnaayata oo mataqaana wax u shadu wax fahmaayo waxa sadaqonnimo ah inuu sidoo yahay dadkii ogyihiin habar gidir og tahay hawiin og yahay Xasan Daahir oo si sheegan sidii inuu rabo si ahaad hadana sidii isagoo maqlay Xasan Daahir oo ninkii mudnaa oo cishadkiisa la siyaadle waa nin adiga da Xasan Daahir Awees oo araba inaan ninkan kugu soo gabagabeeyo waa agaasimada kadeed oo la magacaabo camal waay ra'iisul wasaare sidoo farmaajo u yimid wax ra'iisul wasaare macna la Xasan Khayra u dambeeyay kan waa agaasime marka Xasan Khayra u dambeeyay marka kulay Xasan Khayra kursiga ugu matagin inay sanaceen inuu diiday muddo kororsi ayuu uga taga mooyee isma nicin asi farmaajo adduunka isku jeclaayeen laakiin muddo kororsi maya oo Xasan Khayra ku baxay kana ka waran agaasimaha dekada waa idin salaam ya saaxiib meel joogtaan